kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddaad nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. سمي وناجي صورين عاشقة سفز لغما صوري سود وين تملبكا رنت لغو سفيو الله صاري وبحو دادك كلا سريكتي اسكو سودت بيو دونت الله اسكو سوريو يباشا سلق النغطا هوبان بسلاتي مربو عنبر درس كلا نغضو اما دوح ايامال وحمقان ادون تبين قلبي اغا تاغيرو intaas waxay hordhac u tahay warbixintan idin la wadaagi doono ee ku saabsan baadiyaha Afrika. Haweeneey mid kamid ah wadamada ugu hodansan dunida u timid si ay nolol cusub ugu samaysato. haweeneydan 46 sano jirka ah ayaa ka soo jeeda dalahan Mareykanka. magaceedu waxa uu yahay Janine Sanchez Rayman. waxay jacayl u qaaday wiil Afrikaana oo sabab ka dhigtay in dalkiisa ay u soo dhafto. sheekadan oo warbaahinta qaar ay soo daabaceen waxa haweeneydan ay axadda isbuuca dambe oo 13 bishan December ku beegan 2020 ay guursan doontaa wiilkaas da'da 23 jirka ku jira. kala bar da'da ay jirto haweeneydan ayuu wiilka jira. warqadda casuumaadda guurkooda ayaa baraha bulshada lagu baahiyay waxaana arooskooda uu ka dhacayaa deegaanka Gaasuu Banshekara ee gobolka Kano. xiriirka jacayl ee lamaanahan ayaa ku dhisnaa ama ku saabsanaa mid lagu jilayay telefoon iyo qadka internetka, taas oo kaliftay in haweeneyda ay lacag ku bixiso guurkooda wiilkana ay guursato iyadoo dalkiisa ugu timi. falcelin badan ayaa ay ka keeneen dadka u dhashay waddanka Nigeria iyagoo sheegay in wiilka haweeneydaas ay aad uga weyn tahay. Janine ayaa ku noolayd magaalada London ee gobolka California dalka Mareykanka. jacaylku waa cajiib. waxa uu calanka ku suraa mararka qaarkoodna meel aadan filayn uu kaaga keenaa qof kula da'a ka weyn ama kula faca. dhinaca jeeburnaantana waa lagu kala duwan yahay oo xulashada iyo dooqa nasiibka horseed u ah. wiilkan guurkiisa dhacaya ayaa ah muslim. magaciisa waxa uu yahay Suleymaan Isaaq waxaana uu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay noloshiisa cusub ee u bilaamaysa dhawaan. toddobaadka dambe ayaa arooskooda u dhacaya kadib markay aqal galaan ayay Janine Sanchez dib ugu laaban doontaa dalkeeda Mareykanka oo ay u doodi doontaa xaajigeeda si ay hal meel ugu wada noolaadaan. si sharci ahna ay Mareykanka inay ugu dhoofiso ay doonayso. sidee kula tahay daawaday? jacaylku naamisan tahay in midab uusan lahayn mararka qaarkoodna adoon filayn kugu hogaamin karo meel aad isleedahay qalbigaaga in marnaba aysan ku soo dhacaynin. bal aragtidaada nugula wadaag qaybta hoose ee commentiga. muuqaalkan like saar haddii uu ku soo jiitay, subscribe noo dheh haddaad nagu cusub tahay. adoo mahadsan waan kaaga mahadcelinaynaa inaad muuqaalkan dhamaysatay. daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.